madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo mar saddexaad isku doortay jagada madaxweyne ayaa lacagtii shacabka Djibouti ku bixiyay xaflado lagu amaanayo sida tani ka dhacaysa magaalada Ottawa sabtida 7 May 2011 waa nasiib daro in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele lacagta shacabka ku bixiyay hotelkani weyn ee Delta iyada oo maanta shacabka Djibouti ay haysan koronto biyo iyo awood ay ku iibsadaan cuntada oo aad u qaaliya. jaaliyadda Djibouti ee Canada amba dunida boqolkiiba 80 waa dad ka cararay maamul darida Djibouti ee mas'uulka ka yihiin Ismaaciil Cumar Geele iyo adeerkii Xasan Guuleed Absidoon. waa nasiib daro dad sharciga qaxootiga Canada qaatay in maanta xaflad u sameeyaan nidaamkii ka eriyay Djibouti. waxa kale oo aad u nasiib daro ah dad salaada tukada amba xadiisa oo qaala Allahu Ta'ala yidhaaha inay xumaan dhex galaan sida xafladani ayaa xadiis ka dhageysan qofka kala saareen xaq iyo baadil xaraan iyo xalaal. bismillaahir rahmaanir rahiim. walaal sad waqtiga wadankeena maanta waxa lagu haystaa afduub oo mudane taliska mudane Ismaaciil Cumar Geele madax ka yahay ku haysto reer Djibouti maanta waa geeri waayo xorriyadoodii baa ka maqan. nasiib daro dad reer Djibouti oo halkan kala magaalada Ottawa si wadan Canada iyana xaflad inay u dhagaan doonayaan say taliskaas meeshu joogo. kolkaas waxa xafladaas waxa lagu dhigay waa xoolihii shacabka reer Djibouti waa حقي شعب رجيت waxa mudan Ismaaciil Geele in lagu dhagal la doonayo tamashaad lagu wixdo halkan lagu tunta la doonayo. kolka dadka halka tagaya tamashaadka waxaanay walaal waxa leenahay dad muslimiin waxaan waa xoolihii adduunka waa xoolihii dadka reer Djibouti waa dambi weeyaan halka isugu tagina golaha lagu cunayo xaraantana qofna yu tagin. wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa lacag farabadan ku bixiya xaflado oo ka dhaca adduunka dacaladiisa iyo heeso lagu amaanayo sida heestii xilka qaad ee walaalaha Sweden oo reer Djibouti u yaqaaniin waraabayaasha Sweden. sida oo kale madaxweyne Geele lacag ayuu siiya jaraa'idka Jeune Afrique, raadiyaha been abuurka ee BBC-da iyo waliba shabakado kale oo Soomaaliyeed. hadda oo muuqaalkani ku guda jirno qoysas ayaa ku gurya beelay dab ka dhacay xaafadda Kartoon ee Djibouti. madaxweyne Geele muu ku gargaaro qoysaska lacagta shacabka ee xafladaha ku bixinayo. maxaase ku qasbay madaxweyne Geele in lacag geliyo amaantiisa? hase yeeshee mahmaa horaa tidhi doqon baa ammaan gafuurka u duwa.